إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كلمتين وحكو صابسنا دونتا إن شاء الله تعالى qofka muslimka waxa laga doonaya markii nolosha adduunka uu joogo oo ah inuu shaqeysto ma jira sida nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qof cunay wax ka fiican wuxuu asiga shaqeystay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu nugula dardaarmay inaan shaqeysano wuxuuna yiri qofkiin in uu geeda doonto oo qoryo soo gurto oo soo xambaaro oo magaalada keena oo iibsado oo naftiisa anfaca caruurtiisa iyo ehelkiisa uu anfaca ayaa ugu fiican in dadka wax weydiista ha siiyeen ama ha u diideen rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yimid nin sheeganay dhibaato wuxuu ku yiri wax ma haysataa wal wax soo raadi ninka wuu baxay guriga wuu tagay waxba ma lahan mar dabeeto wuxuu yiri guriga waxa yaala oo aan ka soo qaadi karaa waxa weeyaan oo ninka ka soo qaadayba gogol yar ay ku jiifanayeen ama gogol xataa caadi ma ahayn waxay aheeday fardaha wax la saarto iyo weel yar oo biyo ku cabaan biyana ay ku keensadaan labadii uu soo qaaday nabigu u keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii alaabtii la keenay wuxuu yiri alaabtan yaa iibsanaya waa hal weelo yar iyo maxaan ku yiraahdaa mara yar iyo weel yar oo biyo lagu cabahay nin baa wuxuu yiri aniga hal shilin ama hal dirham ku gadanaya surku wuxuu yiri yaa wax ku daraya marka nin kale baa wuxuu yiri laba dirham baan ku daraya aniga ama aan ku gadanaya ninkii labadii dirham ayaa alaabta loogu gatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri orado faas ama misaar wax loo yaqaano ama geedaha baasha lagu jara gudunta soo gado marka waxaad samaysaa duurka gal qoryo soo gura buu yiri 15 maalmoodna ha ii soo laabanin oo yaanan ku arkin ilaa 15 maalmood ninkii uu baxay shaqadii buu galay geedihii ayuu soo gurtay suuq buu keenay uu iibiyaa wuxuu helay ilaa dhowr iyo 10 ama 15 dirham oo kala ama diina yaani lacagta dirhamka markaa jirtay ayuu helay nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri lacagtan baan sitaa wuxuu ku yiri orado 5 dirham raashin ehelkaada ugu gad 5na arad bax ugu gad oo dhar ugu gad ninkii markii muxuu haystaa lacag buu haystaa wali naftiisina uu anfacay ehelkiisina uu anfacay waana deyn baxay ama deyn laguma lahayn dadna abaal kuma yeelanin laana uu shaqeystay saadartay qofka muslimka waxa fiican inuu asiga shaqeysto oo wax soo saaro ma jiro qof yaani ma aragtay xirfad la'aan noqonaya ma jiro saadartay marka dadka kale oo fahmi kara ama garan kara ama awood Ilaahay siiyay ayaa waxa waajib ku ah inay yaani ma aragtay gacan siiyaan qofkii xirfad lagu og yahay qofkii la leeyahay wuu shaqeysan karaa xirfad buu la iman karaa in xirfadaasi wixii uu kaalmeela haduu yiraahdo aniga documentary baan qori karaa in qoraabaan ahay waa in computerkii iyo wixii uu ku shaqeysan lahaa loo gadaa haduu yiraahdo aniga beer baan tacba karaa beerta wuxuu ku tacba lahaa waa in loo fuudeeya haduu yiraahdo anu ganacsi baan gali karaa ganacsi wuxuu ku sameeyay lahaa waa in loo fuudeeya laakiin qofka inuu san noqonin qof kalon cala naas ku culays ku ah adigu inaad shaqeysato ayaa ka fiican dadka inaad wax weydiiso ama aad ku tiirsanaato dadka marka wax weydiisataa maxaa dhacaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamay qofka ka zuuli maaybuuri inuu wax weydiisanaya ilaa maalinta qiyaamaha u yimaada asoon wajigiisa waxba hilib saarneen cad hilib oo wajiga saarneen wajiga ka fiiqmay laana dadka marka wax weydiisataay wajigooda waa isbedelaya adin wajiga waa isbedela dulinima ka muuqato ninka aad wax weydiisatayna wuxuu inuu ka sareeyaa ku muuqato asina wuxuu soo arkaa in loo baahday waxa dhici karta marka in dadka qaar si sameeyaan inuu ka sareeyo inuu soo arka saadartay markii adigu inaad shaqeystaa fiican laakiin waxa iyadana fiican qofkii la og yahay inuu shaqo sameeysan karo ama xirfad uu leeyahayna in xirfadaasi lagu gacan siiyo ayaa fiican marka waxaan isku dardaarminaa walaalayaal
talada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan qaadano oo ah inaan ku dadaalno inaan shaqaysano wax soo saar anugu aan lahana hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh